السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaad saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudane ku xiran janaalka walaalaha family waa mar kale muuqaal cusub oo idin kaga diyaarinay musalsalka walaalaha xalqadiisii 67 dhacdooyinka ugu muhiimsan. Sabab ognahay ba hadda ka hor xalqada dhawaan soo faalin jirnay balse hadda copyright iyo dhibaatooyin kale ayaa iska jira oo dhanka ATV ah. Marka nooma ogolanayaan faalo dhameystiran inaan xalqada ka soo qaadano. Marka gooska asaga channel kale ayaan soo gelinayna insha Allah wixii macluumaad iyo sidoo kale dhacdooyinkoon mid ku soo qaadanayo sidoo kale xalqadoon ka sameynayna muuqaalo badan oo idin ku sharaxayno channel-keenan baad ka sii daawan doontiin insha Allah ta'ala. dhanka commentigana linkiga u horeeya waa gooskii halkaas ay ka soo daawanaysiin channel-keeni hore by joke. Marka han gudo galno daawada hadii markii waa soo booqatay channel-keena walaalaha family subscribe inoo saar sidoo kale muuqaalkaani like inoo saar. waa tahay qodobka ugu muhiimsan ama qodobka koobaad ee uga hadlayno muuqaalkan ama xalqadii 67 dhacay waxa kamid ah gabadhii email haysan wada ognahayba waxay tagtay xirada agoonta iyadoo isla markaana rabtay inay halkaas ku noolaato isla markaana waa la soo dhaweeyay ma xume wareysi ayaa laga qaaday email waqtigaas waxay sheegtay in aysan rabinba in ay la sii noolaato walaalaheeda maadaama ay sabab u noqonayso in ay guulahoodii waayaan ama yacni waxyaalo qaar ay la soo darsaan. email waxay sheegtay ama ay tiri aniga hadii aan hadda walaalahay la sii noolaadaan ayaga riyooyinkooda uma rumoobayaan sababtoo ah aniga hadii aan hadda la joogo walaalkayga Umar America ma aadi doono scholarship ama waxbarasho ahaan ma aadayo walaashay Aasiana dalka dibadiisa ama Italia ma laga yaabay inay aado sababtoo aniga iga fikraysa marka waxaan rabaa xirada agoonta inaan iskaga noolaado aniga si walaalahay ay riyooyinkoodu ugu rumoobaan. sidoo kale waxaa jirta walaalahay habeenii dharaar way shaqeeyaan labaduba waxayna u shaqeeyaan aniga dartayda iyo waxaan cuni lahayn ay u shaqeeyaan hadii aan aniga joogi lahayn oo aniga la xalin lahaa xirada agoonta aan joogi lahaa midkood ayaa nasan lahaa oo shaqada mid un baa shaqeyn lahaa labaduba ma aysan shaqeeyeen. markaas kadib email waxa la go'aansanayaa xirada agoonta in la geeyo. hadaba gabadhii xirada agoonta geynaysa ayaa Aasiya wax walba u sheegaysa Aasiya waqti xaadirkaasi ka walwaleyn email meesha ay tagtay Aasiyana intay Umar la hadasho ay u wada tagayaan email isla markaana ugu dambeyntii waa soo kaxaynayaan guriga ayna ku soo celinayaan email la xirada agoonta ma joogayso waa la soo celiyay. qodobka labaad ee dhacaya waxa kamid ah xalqadii dhameysay wada ognahay ba dhamaanba dadku ay soo xanaya hayd sida Shingul Tolga iyo sidoo kale Nabhat. hadaba suuxdintaasi ugu dambeyntii marka meel badan laga eegay waxa sababay waxay cuneen dadkaasi hilib dhacay iyo cunto dhacday oo datekeedii dhaceen ayay cuneen taasi ayaana kaliftay in ay ku suuxaan xoogaa wareerana way keentay. arrinkaasi markii la baarayna waxa ka dambeeyay Caakif iyo ninkii cuntada karinayay Axmed Yilmaz oo shirkadda ama waxay ahayd hotelkaasi ama clubkaas Yacquub lagu magacaabo sheer ku lahaa wuxuu go'aansanayaa in uu shaqada ka eriyo ninka Caakif lagu magacaabo iyo sidoo kale ninkii cuntada karinayay maadaama aysan date-ka aysan eegin isla markaana ay sabab u noqon gaadheen in ay dad dhintaan. sidaas daraadeeda Axmed Caakif bankooda iyo sidoo kale ninkii karinayay cuntada oo Cizeed lagu magacaabo waa la eriyo waxa laga eriyay dabcan waxa laga eriyay hotelka ayaa laga eriyay ay ka shaqeynayeen. hadaba dhanka kale qodobka kale dhacay waxa kamid ah Duruuk waa uu soo soconaya asagoo imanaya dhankaasi iskuulka hase ahaatee ma salaamayo Aasiye sidoo kale Umar Uljaan oo kaliya ayuu salaamaya. markaas kadib Uljaan ayaa dhahaya maxaa qaldan talo Aasiye maanta maxaa lagu dhacsan yahay Umar ayaa dhahaya Duruuk waxa uu maleynayaa qoraal xun oo la qoray inay Aasiye qortay ayuu u maleynayaa sidaas ayuu Aasiye uga xanaaqsan yahay asagoo Aasiye isooga xanaaqsan xanaaqaysa iska watay waxa dhacaysa in la gaaro waqti break ama erftada u taqaantid ama saddex xiisadood marka la dhigto xiisada afraad xilli break dabcan waad fahmi kartiin ayaa la gaarayaa waxay imanayaan dhankaas cafeteria ay imanayaan markay imaadaan kadib waxa dhacaysa in ay arkaan beerkii oo haysta bombulo isla markaana ku qoran yahay la'aanta ama yacni anoo habku siin ma seexan kari waana ereygii uu Duruuk Aasiya u sheegay xalqadii tan ku horeysay dabcan uu Duruuk ku dhahay Aasiya waxa jirta sir yar ha qoslin sirtaasina waxa weeye bombuleer ayaa sirta dul taala anoona iyada habsiinina ma seexdi. marka sirtaasi uu Duruuk Aasiya u sheegay ayuu Duruuk moodayaa inay Aasiya qof kale u sheegtay marka Duruuk halkaas ayuu ka fahmayaa in uu beerkii
dabcan sirta ogaa. Beerka ayaana dhahaya waxay sheegtay Aasiya ayuu markuu koobaad dhahayaa, balse Aasiya waxay dhahaysaa Duruug anigu uma sheegin. wax yar kadib Duruug ayaa dhahaya adiga ayaa qoray warqada soo maaha. Beerkina banaanka ayuu baskanaya wuxuu dhahayaa aniga ayaa qoray, waxaan rabaa sidaan u noolahay inaad u noolaatid, waxaan arkayna inaad aragtid, dhibaato walbana waad arki doontaa ayuu dhahayaa. Duruugna halkaas ayuu ku ogaanayaa Aasiya in aysan wax dambi lahayn. haddaba qodobka kale xigeen muuqaalkan uga hadlayno waxa weeye dabcan qoftii nabhad ahayd oo iska fadhida subaxa kamida waxa uu iman doona ninkii Caakif ah oo iska murugaysan. waxaan ku dhahaysaa Caakif maxaa qaldan subaxdan, isaguna wuxuu dhahayaa meel aan tagan waayey, kadibna niyadayga soo dhacoon ku imaaday, wax walbana waa u sharaxaya. wuxuu ku dhahayaa aniga runtii meel aan tagan ma garanayay, Axmed Ilmaas shaqadii ayuu iga eriyay, waxaan sameeyayna ma garanayay, nabhadii ma ii soo celin. nabhadna waxay dhihi dabcan maxaa dhacay, ninkayga hore ayaa tahay, intaasoo sana ayaan is qabnay, sidoo kale sidoo go'aankaas ku qaadan kara aniga la'aantayda. Caakif ayaa halkaasi ayuu buufinaya, islaantii uu ka dhamaynayaa, ugu dambeyntii shaqadii way ku soo celinaysaaba. laakiin ilaa habeenkaas waxaan filayaa inuu halkaasi joogi doono oo sababtoo isagoo la cashayna arkaya. saaxiibadii hore ee nabhad ayaa sidoo kale habeenkaasi timaaday oo nabhad korka oo Caakif korka arkaysa. saaxiibadaas markii hore nabhad baa asal u lahayd, weligeedba nabhad bay saaxiib ahaayeen, balse markaan Ayla bay saaxiib yihiin oo Ayla ay la hadlaysaa ku dhahaysaa maanta baan ku wadaa oo Caakif baan ku dhex arkay gurigii nabhad ayay dhahaysaa. marka Aylana markay arrinkaas maqasho ku farxaysaa. subaxdiina waxay arkaysaa Caakif oo ka soo baxaya guriga nabhad, isla markaana sawirey ka qaadaysaa oo dhacdac ku siinaysaa. waxayna tagaysaa dhankaasi hoteelkay ka shaqaynaysay Suuzaan, balse Caakif ayaa uga hormarayay Suuzaan, wax walba uu ka dhadhicinayo, iyadana wuu ka dhamaynaya. wuxuu ku dhahayaa saaka waxaan aaday qoftii nabhad ahayd, waxaan kasoo dhamaynaya arrimahan oo dhan, sidoo kale waxaan rabay inaan wax walba kasoo dhameeyo, shaqada dib igu soo celiso. isla markaana Ayla oo faraxsan Suuzaan ay sawiradu sax ku dhahaysaa min subaxan ayuu guriga dabcan guriga nabhad joogay ninkaagu, markaad adiga kaligaa jiiftay asagu wuxuu la joogay nabhad. markaas kadib Suuzaan waxay dhahaysaa maxaad rabtaa inaan ku dhawaayahay, waa dad hore isu soo qabi jiray, haddana waa saaxiibo, sidoo kale wuxuu arrin buu ka lahaa, marka maxaan rabaa inaan ku dhaho. Ayla ayaa arrinkaas uu ka fashilmo oo aad u xanaaqayso meesha waqti xaadirkaasi iskaga tagaysa. waa tahay qodobka kale aan uga hadlayno waxa weeye dhalinyarta iskuulka dhigata wada garanayna ama jilayaasha waxaa loo qaybinayaa afar sida Beerki, Duruug, Aasiya iyo Yaasmiin qayb ayay noqdeen, isla markaana maada khaas ayaa loo diray. markii hore waxaa la rabay in laba maado loo kala qaybiyo physics iyo chemistry, balse ugu dambeyntii macallin cusub wuxuu go'aansaday, macallin cusub waqtigaas meeshaasi joogay wuxuu go'aansaday 4 qof inay haybadooda soo bandhigaan iyo waxay haybad u leeyihiin, sidoo kale in ay muujiyaan sharafta iskuulka, sidoo kale iskuulkan waxa lagu hayo wax lagu barto inay muujiyaan ayaa loogu talagalay 4 qof intay soo qaybiyaan. marka Aasiya, Duruug iyo sidoo kale Yaasmiin iyo qofkii afraad Beerki waxay doorteen dhankaas iyo basketballka, waxaana waqtigaas wada ciyaarayay basketballka dabcan Duruug iyo Beerki. kaameradan waxaa duubayay Aasiya, qoftan Yaasmiinna waxay ahayd montage ama editing, qofka codkiisa dul saaraya ka sheekeynaya xaaladda. waa tahay 4 kalena haddaan u gudubno waxaa weeye Uljaan, IBK, sidoo kale yarkii lagu magacaabay Tolga iyo Cafra, ayaguna qayb ayay u qaybsamayaan oo dhanka fanka iskuulka ayay xoogaa ka waramayaan iyo iskuulka sida muusikada looga barto, waxyaalahaas oo dhan ayay ka waramayaan. sidoo kale 4 kalena waxaa weeye Cumar, Suuse, Layla iyo sidoo kale yarkii Sarbi ahaa ayaa ayagana gaar u baxay, balse kuwaasi waxay ka waramayaan iskuulka dhankiisa dambe ama yacni daaradiisa iyo marka aad iskuulka soo baxaysid u nafisaysid iyo marka kuwaasi waxaas kale ay ka waramayaan. marka muuqaaladii dhan ee la soo keenay waa la wada daawanaya, waxaana u dambeynaya muuqaalka Cumar iyo Sarbi iyo Suuse iyo Layla ayaa u dambeynaya, balse muuqaalku si wanaagsan u socdo oo la isleeyahay waa muuqaalka ugu wanaagsan ee la duubay, ardaydu si u faraxsan yihiin ayaa waxa dhacaysa yarkii Sarbi ahaa in uu soo duubo guriga Cumar uuna dhaho dadka saa u faraxsan xildigaagan ayay galaan, mooradan ayay galaan ayuu uga bilaabaya. Cumar ayaa is hayn kari waayay, halkaasina dagaal xun ayaa ka dhacaya, balse waa la kala qabanaya. macallinkii martida ku ahaa iskuulkana wuxuu go'aansanayaa inuu dhammaanba ardayda ciqaabo, laakiin ciqaabta lama sheegin oo classka uu ka baxaya asagoo ardayda dabcan aflagaadin oo kale waad akhlaaq xun tihiin, inkastoo aflagaadin la dhigi karin oo tahay waana oo kaliya ama canaan.
كل قضبة يقول ممكن سنة وساق هذا بل قضب كأوجستي مهم كسنة حلقة أنت أسود بيسد على وحاوي وقضب كان يعني إن شاء الله كوسا جبنا هديم وحكبوا إن إنكم تيجي نقولوا ذاك سن إنك صار مقالة كلا صوت نودي جنالكي عن الذي كسوح لنون سجماني لا إن شاء الله تعالى في ذو صديق دونه واتهاي قضب كودن بيوحاوي قفتي سيفكي أحيد markii aragto Cumar oo yidhi isla markaana dhaxaya fiicnaan lahayda walaalkay markuu dhimanay aniga dhinto walaashay email maanta anaga darteen ay nooga tagi rabtay markii waxa soo dhan maqasho intay Cumar guriga ay ku laabanayaa iyo isla fadhiyeen waqti xaadirkaasi oo meel ay wada fadhiyeen markaas kadib waxay la hadlaysaa abukaateeda ay la hadlaysaa waxay dhahaysaa abukaato waxa raba baritoon inaan si degdeg u kulano isla baridii ay u tagaysaa abukaatihii isla markaana abukaati marka uu tagto waxay ku dhahaysaa hadda ka hor wiilkayga ayaan maal walba oo leeyahay aan ku qoray dhaxalka aan ka tagi doono waxaan rabaa gabi ahaanba in la ii soo celiyo abukaataan wuxuu dhahayaa dhaxalka wali maana wareejin bay ahayd ba way dhib yarteen ku soo wareejino waad haddana waan ku soo wareejinayna ayaan ku qoraa oo kale isla markaana way laga soo wareejinayaa subaxdii xigteen waxay u tagaysaa Axmed Ilmaas iyo Sheebaal oo wada fadhiya waxayna ku dhahaysaa Axmed Ilmaazo waxaan rabaa Cumar in uu ku noolaado nololtii ugu fiicneed sidoo kale waxaan rabaa gurigan sida ugu dhaqsiyaha badan inay ka baxdeen sidoo kale waxaan rabaa wax walba kugu qoray in dib kaaga soo laabsado oo wiilkayga Cumar aan ku qoro wax walibana Cumar ayaan ku qori doonaa gurigan hadda ii dhaafa qof xun ayaa tahay saad aniga wadada banaanka iga tagtay ayaan anna kaaga tagayaa iyo dhahaysaa oo waxaan rabaa inaan Cumar dabcan maalka dhan ku qoro saad Cumar wadada banaanka uga tagtay ayaan rabaa in aan kaaga dhaqaaqo marka Cumar ayaan rabaa nololtii ugu fiicneed inuu ku noolaado asiga walaalay guriga baxa Axmed Ilmaas waqtigaasi xanaaqsan ayaa waxa uu dhahayaa hooyo midaas ma ogolaanay dacwo soo qaad aniga midaas ma ogolaanay waa qalad sida ciyaalka ay ciyaarin aygu ciyaarin ayuu dhahayaa asagoo xanaaqsan iyo waqti xadarkaasina meeshaas iskaga tagaya iyadoo waxay dhahaysaa qadiyad ayaa furaya ay dhahaysaa dhaxalkaygana waan ka soo ceshanaya markaas kadib Sheewaalo lacagta moodisiin ay ku dul sooxday ayaa wareeraysa waxay dhahaysaa maya sama ogolaanay nasama islaantii is hor istaagaysaa midaas ma ogolaanay soo istaagaysaa Seefkiina waxay dhahaysaa aniga hortay dhigayso Cumar nolol xun iyo ku nooliyay waxa rabaa nolol toog fiicnad ku noolaado haddana iga hor dhaqaaq Sheewaala kama hor dhaqaaqay soo gacantay ku dhagaysaa wadaaduna iska futay markay tiraado way turanaysaa qol yar oo hoos loo galiyay oo wada qashin ahaa oo muusin qashinka lagu xareyn jiray oo laakiin hadda la yarana nadiifinayay ay wadaadii ku dhacaysaa sidoo kale qolkaasi taranjar hoos ay u la taranjar kaadna ku dul dhacday dhulka ay ugu dambeeyay ku dhacaysaa afkana waxa la galaysaa qolkii waxayna dhahaysaa Cumar way caawi iyo dhahaysaa balse Sheewaal way kaga dul xiraysaa waxa dhahaysaa mar baadeed qaadan weeydi waanadeeda halkaas aad way ku jiraysaa dhimo ay dhahaysaa حلقة أنا هالكاسية يكون أكيد وحنفلي آدي أدينا وفانتين كوس كده نكومنتين إن شاء الله كذا دعوة وأنا بصاحبكينا خالد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.